wiilkayga Shaafici dhirtaan iigu darbal wiilkayga Shaafici maanta garabkayga ayuu taagan yahay anigana waxa la wuxuu rabo ayaan sameeynayaa ayay mudano moor qabiilkiisa iyo anaga qabiilkan xiriir ma ka xiriir hore ayaa naga dhaxayn jiray Mongooliska markay dagaalka nagu soo qaadeen ayay xiriir hoosaada la sameeyeen annagana saas ayaan ku kala go'nay aniga ayaga kadibna go'aan waxay ku gaareen gobolkooda inay maamushaan waana waqtiga ay qabiilkeena xumeeyeen naagtaas deegaankeena ayay imaatay kadibna waxay doonta ayay nagu samaysay waxay isdhaan maadaama abbood ugu maqayaan dadkaas waa daciif sidaa doontidna waad ula dhaqmi kartaa salaabada koowaad ee beri qaadaysaa waxay tahay qabaa'ilada kale inay la kulanto qabaa'iladaasna fikirka ay wadato ugu shubto kuntus hadalka badan iga daa musalsalkani wuxuu gaar u yahay talada ugu fiican oo sinay waxay tahay aabaha soo laabashadiisa waa inaad sugtaa ayay si fudud ayay nagu soo galeen anagana maa fursad kale inaan siino kuntus isdaji naagtaas waxa ay samaysay way ku saxsan tahay aniga kuma lihi laakiin haddii aad rabto qabiilkaaga inaad difaacdid fagfag iyo fudeed laguma difaacee waa inaad isdejisaa adiga ilaahay waxaan ka baryayaa dhibaatadan dhacday inaysan dhiig horla annaga aysan noo horseedin annaga dhiig inaan daadina diyaaru ma nihin dadka deegaankeenna deganna ma raba inaan dhibaato u horseedno ee waxa loo baahan yahay deganaan wiilkayga xanaaqan faraha badan waa inaad iska dhaaftaa aabbaha marka uu soo laabto uu koonyaal ka soo laabto wax walba asaga ayaa xallinaya marka isdeji cusmaan aawe xilligii cashadaa la taagan yahay xagguu aaday عثمان واسقدح maxaad ka qabanaysaa meeshan marwey iblikaatan u baahnaa inaan la kulmo gudaha ma ku jirtaa haa way ku jirtaa laakiin se laguma ogolaanayo sidee ku gelaysaan gudaha aniga aqoonsan oo la kulmaayo waraad inta maxaa ka samaynaysaa marwadaan rabaa inaan la kulmo arrimo muhiimaan rabaa inaan kala hadlo cusmaan ayaan ahay aartul ayaa i dhalay yiriiso halkaas kaga tagay dikal madaxaaga ayaan inta dhigayaa soo dhaqaaj maxaad la taagan tahay tan ma taqaanaane waan kugu jarjaray haddii aad dhaqaaji weyso war ma samaynaysaa inanka yar sii daayaan idinku yidhi waxaan halkaan u mid inaan adiga kula hadlo hayo Osmaan soo hadalon ku dhageysanayay badbaadinta ay badbaadinayso qorshe miyaad ka damacsanayd hadalkaaga maan garan badbaadinta ay soo badbaadisay aabbay horta abaal badan ayuu kaaga hayaa gurigeenna si fiican ayaa laguugu soo dhoweeyey laakiin qorshaha hadda aad leedahay maxaad oga dan leedahay maxaase damacsan tahay adiga intaas ayaan rabaa inaan fahmo cismaan waxay sidaad ila hadlayso anigu waxaan kula dhaqmaa walaalkayga yaroo kale walaalnimada intaad duduubta meel loo dhig qof walaalkaaya sidaanoo kale loolama dhaqmo dhaqan xumadii
aabbaha ayaad noola timid cusmaan anigu ogolaan maayo aabbahay inay cid aflagaadayso hadda aniga kule aabbaha wuu dhaqan xun yahay magaaladeena intuu yimid ayuu isku dayay gurigeen inuu xoog ku soo galo laakiin